Subscribe saar halkan si aad u hesho muuqaal walba oo aan halkan soo gelino. Mahadsanid. Wuxuu ka baxay qolka balse wuxuu arkay anigoo banaanka taagan. Axmed miyaan shaqo aadaynin maanta? Waan aadayaa laakiin waxaan rabaa inaan kula hadlo. Waxaan soo aadnay dhanka qolkeena. Hooyaday waad garanaysaa sida xaaladeedu tahay. Fadlan si wanaagsan ula joog oo ula dhaqan. Sidoo kale gacaliso weligay kuma fikirin. Haddana ku fikiri maayo inaan guursado gabar kale. Maxaa yeelay Saa'id ayaan ku jeclahay. Adiguna waad ogtahay. Laakiin inaad guursatid way ku bannaan tahay. Haddii aan anigu wax ku dheli waayo asiyo ilma ma rabay balse waxaan ogahay in arrintan xikmad ku jirto. Fadlan istaji. Maya Axmed, bilooyin badan ayaan hurdo seexan waayay. Hadalka hooyada iyo sida ay ila dhaqanto markay Maryam horteeda joogto aad ayuuna i dhaawacay hadalkeeda. Maryam waxay dhashay gabar ay u bixisay Faatuma. Aniga niyad jab ayaa igu dhacay. Maryam ayaana waxay igu eedeysay eedo aan lahayn sida inaan ka xumahay inay ilmo dhashay. Maxaa yeelay anigu ilmo ma dhalin iyo inaan isku dayay inaan gabadheeda dilo, laakiin eedahaas oo dhan waxba kama jiraan. Maxaa yeelay aad ayaan u jecelahay gabadheeda, mar walbana waan la ciyaaraa. Laakiin qofka kaliya ee arrintaas igu raacsan wuxuu ahaa saygayga Axmed. Jawaabta sodohday ayaana waxay noqotay mid adag. Maryam ayaana waxay dadka u sheegtay in aan ka xumahay inay dhasho ilmo maadaama aan dhalin ilmo anigu. Balse maalin maalmaha ka mid ah ayaan waxaan dareemay daal xad dhaaf ah. Waxaan go'aansay inaan aniga iyo ninkayga aadno dhakhtarkii ayaana i baaray. Markii uu baaritaanka dhameeyay, dhakhtarkii ayaa wuxuu yidhi hambalyo waxaad leedahay uur. Ma rumaysan karo dhakhtar, run miyaa hadalkaaga ii sheeg? Haa waa run, bil ka hor ayaad yeelatay uur. Kadib aniga ninkayga ayaa oynay. Axmed ayaa yidhi alxamdulilah, ilaahayow mahad aday ku sugnaatay. Adiguna waad mahadsan tahay dhakhtar. Markii aan isbitaal ka baxnay waxaan aadnay gurigii. Axmed ayaana wuxuu yidhi hooyaday ayaan u sheegayaa arrinkan. Sodohdii markay maqashay arrinkan way rumaysan weyday. Arrinkan waa run hooyo. Sodohdii oo faraxsan ayaa tiri alxamdulilah, alla ayay mahad u sugnaatay. Horaa loo yidhi sabraabo sadkii buu helaa. Gabadheedii hambalyo. Anigu waxaan u qoslay si xanaaq iyo murugo ay ku jirto anigoo qalbigayga ka leh alla maanta maxay dareemaysaa Maryam. Qalbiga ayaa qash yiri see dareemaysaa Maryam. Waxaan fadhinay waqti yar, qoyska oo dhanna wuu joogay goobta, laakiin Maryam waxay ii eegaysay si nacayb leh. Ma garanay sababta ay sidaas iigu eegaysay. Ma waxay ka xun tahay inaan dhalo ilmihii ugu horeeyay? Laakiin waan iska natiray. Bilihii uurka waxay ahaayeen kuwo daal badan aan dareemayay. Maryam ayaana si xun ila dhaqmaysay. Sodohday ayaana si fiican ila dhaqmaysay. Wax shaqo ahna iima diri jirin. Wax walbana waxay diri jirtay Maryam. Kadibna waxay qabatay fool. Maalinkaas waxay ahayd maalin adag, laakiin daalkii oo dhan wuu tagay markii aan arkay wiilkayga Cali. Wiil ayaana dhalay. Farxadda sodohday ka muuqatay markii Cali aragtay lama qiyaas karin. Xitaa way ka farxad badnayd markii ay Faatuma dhalatay. Taasina waxay sii kordhisay nacaybkii Maryam ay ii haysay. Sababtuna waxay ahayd inaan wiil dhalay. Gurigii ayaana ku soo laabtay. Qof walbana wuu faraxsanaa, gaar ahaan ninkayga Axmed. Bilihii xigay waxaan isku dayay inaan ka fogaado Maryam sababtoo ah sodohday ayaa aniga iyo wiilkayga Cali si gaar ah noo jeclaatay. Xitaa saygii Maryam wuu jeclaa wiilkayga Cali, wuuna la ciyaari jiray. Arrintaas Maryam aad ayay uga xanaaqday. Maalin maalmaha ka mid ah ayaan ku toosay Cali oo si xun u ooyay, wejigiisuna uu casaaday. Waxaan kiciyay Axmed anigoo leh kac Axmed, waxaan garan lahay waxa ku dhacay wiilkayga. Axmed ayaa si degdeg ah u kacay, wuxuuna Cali u qaaday isbitaalka. Markii aan isbitaalka tagnay, dhakhtarkii waxay geeyeen qaybta gargaarka degdega ah. Saacad kadib dhakhtarkii ayaa soo baxay isagoo leh wuu dhintay. Waan ka xumahay. Markaan hadalkaas maqlay waan suuxay. Markii aan toosay, Axmed ayaa i ag fadhiyay isagoo ooynaya. Waxaana weydiiyay Cali hagee buu joogaa? Fadlan dhegeyso. Cali ilaahay ayaana siiyay, ilaahay ayaana naga qaaday. Hana ilaawin, ilaahay wuu abaal marin doonaa. Waan ooyay anigoo leh maxaa dhacay Axmed? Axmed wuu aamusay, aniguna waan sii ooyay. Daqiiqado kadib wuxuu yidhi fadlan istaji, yaanan adigana ku waayine. Anigu waxaan dareemayay in nolosha mugdi isku beddeshay, laakiin waxaan rumaysnaa in wax walba ay xikmad ku jirto. 2 bilood ayaa kasoo wareegtay geerida Cali. Waxaana fadhiyay gurigayga anigoo aan banaanka u bixin. 2daas bilood sodohday ayaa ila fadhiday si ay iga yarayso murugada. Axmedna sidoo kale wuu ila joogay, laakiin Maryam maba aanan arkin gebi ahaanba tan iyo dhimashadii Cali. Laakiin maalin maalmaha ka mid ah Maryam ayaa timid qolkayga. Maryam wejigeeduna wuu adkaa. Sidee tahay? Waan fiicanahay. Waxaan aamusay wax yar. Waan ka xumahay dhammaan arrinta aniga ee iga timid. Waan ogahay inaad xanuun dareemayso, laakiin waxaan rajeynay inaad cafin doontid. Ma fahmin sababta aad cafiska iga dalbanayso. Wax qalad ah miyaad iga gashay? Haa, markii aad dhashay wiilkayga Cali, dab iyo xasidnimo ayaa qalbigayga ka kacay sababtoo ah anigu gabar ayaan dhalay. Waxaana la yaabay sidee dhammaantood kuugu roonaayeen. Aniga igu horeysay dabka xasidnimada. Xitaa hadalka ninkayga ee ku saabsan wiilkaaga siduu u qurux badan yahay dhammaan waxay iga dhigeen
inaan xasidnimo u qaado. Markaas ayaan go'aansaday inaan u tago nin sixiroolo ah si aan u sixiro wiilkaaga. Waxaana rabay oo keliya inaan idinkala fogeeyo adiga iyo wiilkaaga. Waxaan u sameynayay arrintaas si ay u shaqeyso wax walba. Maalmo kadib wiilkayga wuu dhintay. Si qoto dheer ayaan uga qoomameeyay wixii aan sameeyay. Laakiin bil kadib markii uu wiilkaagu dhintay waxaan gartay qaladkayga. Haddana gabadheedu way xanuunsan tahay. Markaan dhakhtarka u tagnayna wuxuu noo sheegay inaan kansar maskaxda qabto, xaaladeeduna ay tahay mid aad u daran. Waxaan rajeynayay inay caafimaadi doonto. Waxaan sidoo kale rajeynayaa in Ilaahay iga cafiyo dambigaan ku geystay. Markay hadalka dhamaysay waan la yaabay. Adigu waxaad dishay wiilkayga, waxaad tahay gacan ku dhiig leh, fadlan i cafi. Laakiin waan qayliyay ilaa dadkii oo dhan isku soo baxeen. Dhammaantoodna warkii way ogaadeen. Xitaa Axmed wuxuu doonayay inuu booliska wargeliyo, laakiin walaalkiis ayaa bariyay. Markaas ayuu ku laabtay go'aankiisa. 2 toddobaad kadib gabadhii Maryam way dhimatay, ninkeeduna wuu furay. 2 sano kadibna nolosheedu way hagaagtay. Waxaana leeyahay anigu hadda 2 gabdhood.